السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا كبعية سوفت وير كورس كيني عصباء كويك بوك 2016 بانو السعودي 10 كانوا 10 كيني كوبي تمنا قيبتا براكتيكالك 10 كان waxaan ku hadli doonaa cash collecting on sales receipt marka aad sales samaysid ama aad wax iibisid sidii cashkii soo galay ka soo galay saleska saad u soo muujin lahayd ama aad balance sheet-kaaga aga dhex arki lahayd buu 10 kii ku saabsan yahay marka wixii deelugu cashkii deen ka soo galay 10 kani kuma saabsana marka ku saabsan yahay cashkii sales cashkaaga soo galay oo micnaa hadda markii saa lagaga iibsay cashkii ku yimi buu 10 ku saabsan yahay marka ku soo dhawaada 10 keenin markaad barnaamijka soo furtid markaad cashku wuxuu ka soo galayaa dhinacyo fara badan markaa soo gali karaa wuxuu kaaga soo gali karaa in deen kaaga maqan lagu keeno in hadda marka laga iibso sheegay cashkii faraha lagu dhiibo marka wuxuu ka hadlay 10 keenin markii sales hadda markii sheegay laga iibsay in faraha lagu dhiibo imisa cash baa ku soo galay oo faraha lagaga dhiibay markaas ku saabsanaya reports kaas aad u muujileed marka wax tagaysa marka ugu horeysa reports company and financial dan waxaad ku sii difaysaa balance sheet standard dan waan weynaysiinaya si aan hore u ogeyn halkan waa cash waa lacagii asset-kii waxa ka sii tagaynaa undeposited fund waxay ahayd marka ugu horeysa marka cashku ku soo galo waxa lagu ururiyaa agoonka undeposited fund intaan loo gudbin bankiga lacagta la geyn oo businesska waxay yaqaaneen in bankiga lacagta ku keedsana oo account samaysan bankiga marka laakiin intaan account-ka loo gudbin ama maqalkii lagu ridin lacagta waxa lagu ururiyaa account-ka loo yaqaan undeposited fund marka undeposited fund baa ka ogaanaa lacagihii cashka saleska naga soo galay marka waxaad ku dhifaysaa laba jeer baad ku dhifaysaa undeposited fund lacagta hadda inoo taala 458 baad ku dhifaysaa laba click hadba lacagta inta ku qiimeysan marka haddeer lacagana waxa isku jira waxyaalo fara badan kaasi wuxuu nooga yimi lacagtaas waxa nooga timi account receivable lacagtaasi sales toos ay nooga timi marka hadda uu fududahay in labadan uu sales nooga timi laakiin markuu account-kaagu fara badan yahay dee waa ku adagtay in dadkan waa sales laakiin si aad u muujin lahayd wixii sales oo dhan baa si aad u muujisid waxaad tagaysaa customize report baa tagaysaa dan waxaad tagaysaa filter dan waxaad kasii qoraysaa halkaa waxaad kusoo qoraysaa transaction baa tagaysaa transaction kii waa transaction type baad ku dhifanaysaa oo shaa marka ku dooran waxaad ka dhigaysaa sales receipt baa halka ku dhifanay then okay baad ku dhifanay hadda maxay soo baxay intii sales receipt caadiga ah lacagta lagu dhiibay buu soo saaraya marka wuxuu dhahayaa waa laba lacagood baad sales receipt ka heshay waa kontonka iyo 94 marka adigu waa sidaas baa loo muujiyay 10 keenina intaas ka soo gabagabeeyna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.